kole wuxuu dhahay horta shaqada waan ku siiyo dhahay bishiin waa $200 laakiin adiga wili imaanan iga garbixin oo idhaay maxay taana garbaxa sheegaysiisa dhahay shaqada si walaaltinimo ii siisee waxaana ku direys maxay tahay Ayni ma ahan magaceeda saxda ah waxa ay ku nooshahay magaalada Muqdisho iyada iyo aabaheed kaas oo ah waalid waqtigu uu ka hiiliyay wax dhaqaalahana aanan haysan si gabadhiisaan yar ay horumar u gaarto iyadoo ka duuleysa horumarinta nafteeda iyo tan waalidkeeda waxa isku dayday inay shaqo u doonato dhowr xarumood oo kala duwan oo ay ka mid yihiin jaamacado, hoteelo iyo shirkado balse arinta la yaab kale waxay noqotay in gabadhan lagu dirqiyay in baahida shaqo ee heeso darteed inay ku bedelato galmo aan sharci ahayn markii ay ka diidana waxa ay weysay codsigeeda shaqo haddaba ha inooga sheekayso dhacdada koowaad ay la kulantay gabadhan oo aan u qarinay wajigeeda ilaalinta sumcadeeda iyo khatar amni arinta ugu muhiimsan waxa waaye maalin ayaan ka doontay jaamacadaha ku yaala dalka Soomaaliya mid ka mid ah waxaan ka doontay shaqo nadaafad ah lagaga sheegay mid ka mid shaqaalooyinkaas qaybta u fadhiya shaqada dadka siiyo oo aan ka doontay lambarkiis gaar ahaan wuu isiyay oo wuxuu idhaa shaqadu way banaan tahay bishiina waa $200 haddii aad u baahan tahay nadaafadda waa soo gali kartaa waa midaan jaamacadii markaa tagay wuxuu igeeyay jaamacad aysan micnaha oo laga qabanaynin jaamacad laga guuriyo oo wax micnaha yaalino oo dhamaatay oo igeeyay wuxuu idhaa meesha ka shaqeynayso waa halkan sida loogu shaqeeyaa adhaa meel micnaha oo wada bus waaye oo mar hore laga guuray mana micnaha ilama aha meeshan in shaqaale loogu baahan yahay sidee micnaha qof ma joogin cid leed aniga asaa joognay anigoo marka cabsanaya ilbaabka galay asiga wuxuu idhaa soo gal waa halkan oo idhaa markaasaan dhahay halkan qof kuma jiro waana meel oo wasakh ah qof oo micnaha mar hor ugu dambeysay waa sida u gala oo nafsideeda ku aaminaa markaas oo idhaa horta adiga shaqo ma rabtid aad horta soo galba hadaa cabsanaysid micnaha waaba iska bixi kartaabo shaqo kuma hay okay anigoo sida soo cabsanayo salii nabiga afka iskaaga qabsada oo ilaahay garabka micnaha garab weydistay oo waan galay kadib markaan galay oo wuxuu idhahay 3 qol wuxuu ii furay oo eber oo baaba oo ii furay kadib uu idhaa waa kina meesha ka shaqeynayso waa halkan nadaafada aad ka qabanaysid okay aan walaalkayga aada uu mahadsantaa dhaa shaqada maadaama ICC aan dhahay okay markaas sidaas u soo baxnay oo aan imaanay qaybtii maxay dhahan banaanka u soo socono markaas oo ilaahay istaag ay abaayo kole wuxuu dhahay horta shaqada waan ku siiyo dhahay bishiin waa $200 laakiin adiga wili imaanan iga garbixin oo idhaay maxay taana garbaxa sheegaysiisa dhahay shaqada si walaaltinimo ii siisee waxaana ku direys maxay tahay kadib uu idhaa garbax waa dareemi kartaa codsi iga tahay abaayo ina ii fududeysa rajeena codsigeyga ina ii sii sheegtay soo kama fiicnaa dhaa codsigaaga haddii lacagtaaya dhahay diyaar waa markaa shaqada bilaabo bish ugu horeyso intaa ii soo raadisay waa ku jira waa ku siinaya markaas oo idhahay ma aho dhaa lacag inaadan lacag haysan oo u jeedaa laakiin wax muhiim ah haysa wax muhiimka ka codsanaya ina isii sidoo idhaa waan dareemi kartaa okay haddii sidaas taana mayaan dhaa maribiyaan dhaa wax muhiimka waa dareemi kartaa wuxuu idhaa maadaama gabar tahay oo anigana micnaha wiil dhalinyaro aan ahay waxyaala lawaan kan waa ogtahay oo dhaay micnaha waan dareemi kartaa oo dhaay ina micnaha ii fududeysna rajeynaya waxyaalaha micnaha waxaa ka mid ah ina micnaha aan wada galmoon ama micnaha waxyaala aan sameeyno haddii aan raali ka tahay shaqadan diyaar waa beri baa soo gali kartaa sidoo kale waxaa jirta dhagar kale oo ay la kulantay gabadhan laakiin ugu dambeyn ka badbaaday maalin maalmaha ka mid ah gabadha shaqo ka codsaday gabadhii marka waxay igu dhahday hoteelkaas shaqo ka banaan wiilkan lambarkiisa ku siina wiilkan waco okay gabadhii markaan wacday oo lambarka isiisay wiilkiya micnaa wacday kadib wiilku wuxuu idhaa waa runtii qofta ku soo sheegtay shaqo way ka banaan tahay hadaa soo galaysid adiga waa ugu dhahay kadib markii oo sis igu dhahay waxaan dhahay bishi waa imisa dhahay $400 oo dhahay marka $400 idhahay aad ugu farxay oo waan micnaa aad farxadeeda lama soo koobi karo oo waxaan dhahay maanta ma sha Allah oo ilaahay ku soo warmay oo bishi $400 hada qaadanaysa nadaafad aad wallahi nolosha gurigiin uu buuxsan kartaa isdhaay kadib markii sidaas dhacday wiilku wuxuu idhahay waxa laga rabaa ID ku gashid meesha iyo waxyaala oo damiin ah laga rabaa oo idhahay
okay insha Allah soo raadin doonaa dhaa shaqada laakiin qofbaha iga siinaa dhaa aniga aad ugu baahnaa dhaa wiilku wuxuu ogaaday markii inaan shaqada aad ugu muhiimsanahay oo duruufana ay haystaan wiilku wuxuu idhahay abaayo dhaa horta ana shaqale i weydiisiyo dhaa macnaa wixina ima weysii weydiino dhaa meesha laga sameeynayo sida akhbaarta ay tahay waxaan u jeedaa dhaa qof oo macnaa hami leh oo ina shaqaysato oo daacad u tahay u jeedaa oo idhaa macnaa dad badan jiraan oo sidaan oo ka sii baxeen oo dhaa okay shaqooyinka waxa kamid oo dhaa oo la qabanayo dhahay oo waxa jira nadaafad waayo dhahay laakiin hadii macnaha soo heshiiso $10 aad soo gashid oo shaqada nadaafada oo hotelkan ka shaqeynaysid waa mara mustaqbalkaada meesha ku baa oo maxaa kamid in macnaha oo marka oo macnaha qolka soo galaysid waa qolala aad hagaajinay aan nadiifin qofa biyo u keenin nadaafada haysa inta laga taabto gadaal haga soo madax xabadka laga taabto kama hadli kartid oo idaayo oo sidaas yeelay marka waxa yeelayo dad oo xoodha dibadaha ka imaadeen iyo dad Soomaali oo macnaa oo dhaqankii ka tageen oo dhahay oo gabdho badan sidaas oo kale ku hay oo aan ka hadli karin oo dhahay kuwaas aan maanan keenin laakiin shaqada adaa macnaa aan ku keenuya oo dhahay marka wuxuu dhahay lama sidaas da ku gal kartid waakas oo macnaa gabarna waa taa oo dhahay hadii mustaqbalkaada barbtido dhahay in sidaas lagu taabto waxa la wadaagtina gabarta waa la wadaagay oo gabar ayaa hadii gabar tahay ma yoo dhahay mustaqbalkaada in lagu ciyaaro ma rabo arintan hadii meeshan soo gashidna oo dhaa waa mara macnaha oo xabadkaada laga taabto gadaal laga soo mar meesha ku baa oo dhaa hatta oo dhaa had 400 ku shaqeynayo oo dhaa waxaaba lagu dhihi karaa oo dhahay dhacdadii koowaad ay la kulantay gabadhan haddii aan ku noqono waxaa dib maalmo kadib u soo rogaal celiyay xiriirka ninka ka ah kaaba shaqaalaha jaamacadda ay ka doonatay shaqada kaas oo la wadaagay fariimo uu kaga dalbaday mar kale inay wada kulmaan una fududeyso galmada uu ka doonayay haddaba maxaa ku kalifay in shaqo ay raadiso gabadhan oo 19 sano jir ah wallaahi waxa igu kalifay arrimo dhowr ah hooyadeed aabahay way kala tageen hooyadeed waxay jirtaa Sanca jirtaa Yemen dagaal xaga ku haystaan aabaheygana waa macallin dugsi xaasoo leeyahay dabcan eedana waa la joogaa waan dareemi kartaa marka eedan la joogtid xanuunka leedahay waxyaalahaas ay ugu kalifay iyo waxbarashadeeda sida uu macnaa ugu dhameysto iyo hooyadeeda sida uu ka caawan wallaahi iskuulka waxaan ugu baxay fasalka 8aad shaqo la'aanta iyo nidaam la'aanta dalka ka jirta ayaa keentay in dhalinyaro badan ay dalka ka tahriibaan sidoo kalena haween badan ay kala kulmaan marka ay shaqo u doontaan xarumaha dalka ka jira caqabado badan tani ayaana sii noqon doonta mid sii jiri doonta haddii aan wax laga qaban maxamed yaxya jinow 5 Somali TV muqdisho